بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasana inaga soo galay Soomaaliya oo aad kala socotaan bahda TV qodobada aan idinku hayno waxa ka mid noqonaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga hayaa qodobada kale waxa ka mid noqonaya qaramada midowga Yurub IGAD iyo AU oo fariin degdeg ah u diray dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda qodobada kale waxa ka mid noqonaya Allah u naxariistay dilkii gudoomiye Cabdixakiin Dhagajoon oo la sheegay in uu ku dhacay si kas ah isla markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta ay gudagali doonto dhageysiga dacwadda la xiriirta kiiskaasi qodobada kale waxa ka mid noqonaya sababta keentay in ay kala shakiyaan madaxda dalka iyo sidoo kale beesha caalamka xog xasaasi ah ayaan idinkaga hayaa qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal idinku hayaa xogihii ugu xasaasanaa inaga soo garay Soomaaliya waqti wacan ayaan idin rajeenayaa ee mar kale ku soo dhawaada waa tahay haddii aan ku bilaabo qaramada midowga Yurub midowga Afrika iyo IGAD ayaa waxa ay yeesheen kulan looga hadlayay waxay ugu yeereen halista xoogan ee ka dhalan karta doorashada dib loo dhigay ee Soomaaliya iyo ismarwaaga wada hadallada madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan ayaa waxa yeeshay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midowga ee arrimaha siyaasadda agaasimaha Afrika ee midowga Yurub iyo madax ka tirsan siyaasadda ee midowga Afrika oo markaasi goobjoog sidoo kale ay ka haayeen urur goboleedka IGAD qoraal ay soo saareen kadib kulankooda ayaa ururadan waxa ay ku sheegeen inay si aad ah markaasi uga walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed ee markaasi saameynta xoogan ku yeeshay nabadgelyada dalka Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen iyo arrimaha ammaanka maadaama doorashadu ay waqtigeeda kadib dhacday waxay sidoo kale ugu baaqeen hogaamiyaasha Soomaalida wada hadallada si ay u raadiyaan isku tanaasul ku aadan arrimaha la isku hayo una xaqiijiyaan in aan marnaba dib looga dhicin doorashada waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaalida in ay sii wadaan horumarkii laga sameeyay dhisidda dowladnimada iyo siyaasadaha loo dhan yahay gaar ahaan doorashooyinka iyo sidoo kale in si nabdoon loogu wareejiyo dowladda kale ee markaas imaan doonto maadaama dowladdan ay sheegeen in waqtigeeda uu dhacay qaramada midowga Yurub midowga Afrika iyo IGAD ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan xaaladda Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waraysi gaar ah siiyay mid kamid ah TV-yada ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan sida shirkii Afisyooni cabsida laga qabo in la sameeyo muddo kororsi cadaadiska ka imaanaya dhanka beesha caalamka iyo qodobo kale oo xasaasi ah waraysigan oo si hordhaca loo sii daayay ayaa Qoorqoor waxa uu ku soo hadal qaaday xiriirka siyaasadeed ee haatan kala dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maadaama uu ka mid yahay hogaamiyaasha maamul goboleedyada taabacsan filla Soomaaliya Qoorqoor ayaa shaaca ka qaaday haddii uu Farmaajo si rasmi ah ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa uu ula mid noqon doono musharaxiinta kale ee sanadkan 2022 u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee 4 sano ee soo aadan waraysiga uu bixiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in lagu kala tago wada hadalladii Afisyooni si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad adag oo kala guur ah waxaana wali ismarwaa uu ka taagan yahay hanaanka doorashooyinka dalka ee sanadka 2022 xiriirlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa shaaca ka qaaday dilka gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Allah u naxariistay marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon oo markaasi lagu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir dilkiisana uu ku dhacay si kas ah sida uu markaasi hadalka u dhigay General Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in arintaas lagu ogaaday baaritaankii ay sameeyeen guddigii arintaasi loo saaray oo maxkamadda markaasi u soo gudbiyay warbixinta natiijada kama dambaysta ah ee baaritaankooda
waxa uu intaasi ku daray in maanta ay shaacin doonaan magacyada ayna markaasi sameyn doonaan eedda ka dhanka ah dadka loo haysto dilka islamarkaana ay muddayn doonaan maxkamadda. guddoomiyihii hore ee degmada hodan allaha u naxariistay cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa 21 Janaayo lagu dilay israsaaseen ka dhacday isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho xilli markaasi uu ku socdaalayay meel aan sidaas uga fogeen isgoyska Howlwadaag. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka dalka ay shaqadooda qabsan doonaan ayna bilaabi doonaan qaadista dacwadda kiiska uuna rajaynayo in cadaalad ay heli doonaan qoyska. allah u naxariistay guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka Banaadir cabdixakiin dhagajuun. warka ka soo baxay dowladda ayaa yimid kadib markii ay markaasi beesha marxuumka ee ku eedeeyeen dowladda in kiiskiisa meel markaasi la isaga tuuray islamarkaana la sii daayay qaar ka mid ah dadkii ku eedeysnaa falkaasi. markana xog ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa la sheegayaa in kala shaki uu soo kala dhex galay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad 9kii bishan Abriil u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxaana ay uga digtay in faragelin lagu sameeyo doorashada dalka ee la isku mari la'yahay. qoraalka ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa faragelin kasta oo dalal shisheeye mid toos ah markaasi loogu soo faragelinayo arrimaha gudaha dalka qarannimada ay dhaawacayso golaha ammaankana heshiisyada iyo qawaaniinta dawliga ah ee u degsan arrintaasi ay ka soo horjeedo. Arbacadii ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in uu fashilmay shirkii hordhac ahaa ee Afisyooni uga socday dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. dowladda waxay sidoo kale eedda shirkaasi inuu fashilmo dusha uga tuurtay madaxda Puntland iyo Jubbaland. wararka ayaa sheegaya in toddobaadkii hore uu jiray kulan dhex maray beesha caalamka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi hareeyay buuq iyo sidoo kale in la isku fahmi waayo qodobada qaar. kulankaas ayaa xubno ka tirsan dowladda waxa ay beesha caalamku weydiiyeen kaalintooda halka wakiilada beesha caalamkana ay ka jawaabeen kaliya in aan mas'uuliyad ka saarneen amniga hay-adaha dastuuriga ee sidoo kalena mas'uuliyadoodu ay tahay in ay ilaaliyaan in aan markaasi la carqaladeynin geedi socodka iyo sidoo kale arrimaha doorashada. waxaa muuqata in beesha caalamka ay ku daashay arrimaha doorashada Soomaaliya taasina ay keentay in uu xumaado xiriirka markaasi ay leeyihiin filla Soomaaliya iyo beesha caalamka iyadoo taasina ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay aado golaha ammaanka ee qaramada midoobe. qoraalka loo diray golaha ammaanka waxaa ku xusan in amniga doorashada lagu wareejin doono xukuumadda. tallaabadan oo hal dhinac markaasi ah oo aan lagala tashan maamul goboleedyada oo dood ka qaba sida loo maareynayo amniga doorashada ayaa waxaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in buuqa uu markaasi sii xoogeysan doono oo la isku fahmi waayo arrimaha doorashada halka markaasi hadda la kala joogana laga sii kala fogaan doono. lama oga sababta ay dowladda federaalka Soomaaliya u doonayso in beesha caalamka faraha kala baxdo doorashada Soomaaliya iyadoo markaasi leh maalgelinta doorashada, sugidda amniga iyo bixinta qoondada miisaaniyadda dowladda 40%. dowladda Soomaaliya ayaa haatan waxa ay sheegtay in dadaal xoogan ay ku bixinayso sidii doorasho dalka ay uga qaban lahayd. hase yeeshee maamulada qaar ee Puntland iyo Jubbaland ayaa iyaguna waxaa lagu eedeynayaa in marnaba aysan raali ka ahayn in dalka markaasi ay ka dhacdo doorasho. ugu dambeynna wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa magaalada Muqdisho kulan gaar ah waxa uu kula qaatay saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka militari ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidoo kale dardargelinta howlaha la xiriira sugidda ammaanka iyo tababarada Mareykanku uu siiyo ciidanka xoogga dalka ee commandoska loo yaqaano. kulanka wasiir Xasan Xuseen Xaaji iyo saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ku qotomay xoojinta xiriirka militari ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha tababarada iyo taageerada Mareykanka ay siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta. dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in Mareykanka uu kordhiyo taageerada iyo tababarada uu siiyo
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo wasiir Xasan Xuseen Xaaji uu markaasi u gudbiyay saraakiisha militariga Soomaaliya. Mareykanka ayaa si gaar ah imika waxa uu tababaro u siiyaa ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan danab kuwa oo markaasi dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. hase yeeshee dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in bilihii la soo dhaafay ay markaasi ka hor imaadeen in ciidamadaasi loo adeegsado arrimo siyaasadeed. Wargeyska Washington Post ayaa horaantii Maarso waxa uu qoray in saraakiisha militariga Mareykanka ay diideen qorshe la doonayay in ciidamada danab lagu keeno Muqdisho si ay markaasi uga qayb noqdaan ciidamo is-horstaag markaasi ku sameeyay dibadbaxyadii ay qorsheynayeen mucaaradka 19 Febraayo. si ka duwan Turkiga oo dowladda Soomaaliya u ogolaatay in ciidanka gorgor iyo haram cad ay u adeegsato sida ay doonto, Mareykanka ayaan ogoleen in ciidan ay markaasi tababar iyo juhdi ku bixiyaan loo adeegsado arrimo siyaasadeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Mareykanka iyo sidoo kale shirka markaasi ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha militariga dowladda Mareykanka. guud ahaan wanaaganta wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen Bahda TV.